صدحاس أنا قلت سيدي كوجو معناها صورة قش ما شاء الله والله وواحد أنت أقبضن دتك دم يرد أنا يقانو أما دتك يقولوا درس كي حتى هاتي يكون مشغول شيء بقول كبرنا كتيف دبك كورة حيبانا حيرتي كبرغبك أهش بحسني بانا حيبنت مولا حشتي بولا ردقانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالك نجيب channel kan ga damana san walil najboy falan channel ka da ku cusub tahay subscribe ka saar halkaas gaduudan taabo subscribe ka saar maanta muuqaal ayaan yahay ma garatay laakiin muuqaalka inta u gudagelin hadiyad ayaa li soo dhibay ya ingiriiska ayaa hadiyad li soo dhibay away booski aw maaqan hadiyad ayaa li soo dhibay asxaabi u qaali ah alaab badan ayay ahayd laakiin kuwan kale no camera hatta way ka weyn yihiin no soo kan ayaan rabaa maanta inaan furo horta qofkaas wuxuu magacayga ha sheegin no magacayga ha sheegin laakiin aad aan ku mahadcelinaynaa hadda kan aan furayna waa ila daawanaysiina amalaan we are opening column from Manchester address ka amalaan meesha ka imaata laabna aad muxuu noqon karaa talo Oh, thank you so much. Wireless headphone umalaya. That's me. Wireless headphone umalaya. Thank you. Waa mahadsantahay. Okay. Aan gudagalno. Maanta muuqaal ayaan hayaa. Waa mahadsantahay. Okay, hadii isu dhiibo Ilaahay ku badiyada. Aad ayaan mahadsantahay. muuqaal ayaan yahay caanimo ayaa la raadiyaa Soomaalida horta caanimo ayaa la raadiyaa aad qof kasta inuu caan noqdo rabaa okay caanimada ayaa gashay Soomaaliya caanimadii ayaa gashay hadaa afar xaas guursato caana noqonay mid ayaa la soo booday ilankii markuu la soo booday afarta xaas u guursaday deecaanu noqday shacabka waa laga dhax garto taakay waxa xasuusitina umada shalamiya masadarad wiil 20 jir ah ayaa dhahay saddex xaas la ahay aniga waxaan garan waayay qaale hadaa shan xaas guursato shan xaas lama ogolasho ha afar xaas hadaa guursato waa la guursan jiray قصب مية مارتينا ميديا ويرت عاد أنا قاعد أفر حاس أيام قرصتي سد حاس أيام قرصتي لا فإلا داود المقال كم قلت بسم الله هذا أول فرح سنة ولكن شافعنا ما أنت مسواب بقطه وأنا كسول ويننا بقول كي بقول وحن كلنا هاي فكاب قدام ورئيسي هذا كرة قدام مركز سول وكلنا ولكن شافع thank you أدي أظن حسين هاي ولكن مركز يوم استحضر ومهد لنا وصيغ إنه أجيبي وحربا مركز أول رئيسة إن أوجانو وكما ملفظة هنا إسقاطيد بدك عايز برتين بسم الله هذا أمها سنتا ولكن مقعي قصد حن وحسن عبد الرشيد مختار ناس تيجي أما بدك أي كرنا يعني واحد ملبسة شافعية وعن واحد كبر تمجالات مقدسه كبر بار مقدسه كنا دش مقدسه مركا وحاول سودو كلنا مرسلات إن شاء الله البرنامج كنا كنت نقولي سؤاله هذا ما بالله بناء ستوصى سؤال شو كلنا كويدينا وحيد هاي صدح حس أنا قلت سيدي كوجو معناها صورة قش ما شاء الله ويلكا أو سؤال channel كيس محل ده جيل الجامعة ده حقوق المقال كنا أسرع أسكله هذا بحويدنا سيدي كوجو صورة قش صاحب سؤال شال أد وحنتي أيامها المحل برتي الله ولا إن شرير صاحده وريا يا صاص ده كاله أدقنا كاله هل كان يسوق فديستا halka marka soo fariisteen inaga in shirarka xirta qofni garanay ma laha maxaan sameynaa adiga xaaskeyga ta adigna xaaskeyga maxaan rabaa inaan caan noqdo muuqaalkan wallahi waa wax inta ugu badan ee dadka dhalinyarada aniga yaqaano ama dadka igu dhow dariskayga xataa ahaatee ay ku mashquulsan yihiin wallahi horta anigu waan dadaalay laakiin rumaynteeda ilaahay baa iska lahaa alxamdulillah waxa ii suurta kaliya ama ilaahay ka soo koob igarab istaaga waxay tahay waa marwooyinkayga oo ayaga raali iskaga ahaa ama go'aankayga ama hamigayga ama wax aniga aan u baahnaa in aan helo ila rumeeyo ayagana igu garab istaageen boqolkiiba boqol oo mahad celinaya walaalkayga waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol
oo garab ugu sii aan isdhihi kara aniga ahaan waxay tahay waa saddexdan qof garbeyga fadhiso waa mid kaleeto soo dhaweysay mid kaleeto ixtiraam u hayso midka kaleeto ogol in ay hal meel ku wada noolaadaan maasha allah allahu akbar marka su-aasha intaas ugu baxaya shaafic maasha allah waan fahmay taas su-aasha kale aan weydiinaa waxay tahay waxaa la isweydiinaa nin dhalinyara oo 20 jir oo saddexaas geesaha ay ka fadhiyaan oo saddex saxaas ah ku qanacsan yihiin sidee macnaha ku dhici kartaa maxaas koowaad marka koowaad waxa laga yaabaa hal xaas inay guursatay labada xaas oo kale ma xaaskaada koowaad ku doortay mise fikradaada ka timid oo inta codsi u gudubsatay xaaskaaga koowaad ay ka aqbashay inaad labada kale keentid طيب good question ما شاء الله walaalkayga shaaficiyo wallahi waa su'aal waxa wax dadka inta badan isla dhaxmarmara ama isweydiin karaan aniga run ahaantii uma maleynay gabar Soomaaliya inay ku dheeday ha walaal hadda maxaan rabaa inaad gabadh kale ila guursataan rabaade taas horta waa been waa taas xitaa haddaa guursatade dagaal muxuu soconaa 3 bil mise 2 bil kadib ayuu dagaalka uu qaboobaa soo waan garan waayay beenta waa la sheegaa laakiin wax yar ma arag okay aan ku socono wallahi waxa ay ugu suurta gashay waxay tahay horta gabadhaan guursaday gabadhaan markaan guursaday marwadeedii koowaad waaye Allah khayr ha siiye kadib maadaama aniga aan u sheegay aan ku dhahay waxaan rabaa inaan booskeeni aan soo buuxiyo oo aan ilmaheeni badsano aan ku dhahay ama ra'yigayga ay ahayd ayadiina hadal igama gelin waxay tir igu garab istaagtay oo mid kaleete waxa way soo dhaweysay example hal mid aan ku sheegayaa qofka marka xiriir la sameynayso waxa laga hadlaa waxay tahay waa serious inaan dhado walaal aan inaan guursadaan rabaa hamigaygu waa saas waa ila cunay waa ila cabay waa ila ceeshay macnaha haddayna qofka markaas iyo dahabaan rabaa iyo guryaan rabaa ee dhahay qofkaas guur iyo nolol diyaar ma iska diinaysaa marka gabadha marka aan haasaawayo gabadha marka la haasaawayo aan la hadlayo waa u sheegaa waxaan inaan xaasaar leeyahay waxba kama khariyo marka maadaama ay arkeen ani dheernaanta igu jirto iyo reactionkayga markay arkeen oo aniga aan nolol iyo wax qurux badan aan diyaar la markay arkeen kulli ayagina waa soo dhaweyn oo runtii daacadnimadaas un bay igu soo raaceen marka waxaan waa wax la alifay hadda waa wax la alifay oo la dhahay halo halkee joogtaa qaalad maxaan rabaa in wareysina laga qaadee arrimihi aan ka hadlayna de haa soo dhaqso inta shareera ka soo tegin de shareer anaga maxaan u aqaanaa kan oo indhaha lagu xirto waxaan waa wax la soo alifay ayaa u malay maxaa yeelay dee 4 xaas iyo 5 iyo 3 xaas iyo 2 xaas waa la soo guursan jiray hadda qoore waa hataa wiyaashiina waa la soo guursan jiray laakiin se ayaamahan dambe taasaa noqotaba in caanimo lagu raadiyo aan ku socono asha kala rabaa inaan ku weydiiyo waxay tahay oo muhiimka ah oo si isweydiinayo maadaama aad tahay saddex xaasna ayaan isla nooshihiin waxaa la yiri Soomaaliya waxay ku mahmaada Carabi ilka isku dhow labaduna waa isqoomaane bal sidee macnaha haddii ay timaado lacala in la isharuufo ama si la soo fiiriyo sidee waxa lisaa su'aal fiican ma sha Allah su'aashan hadaan kaaga jawaabo walaalkayga waxay tahay marba hadaa aragto dad meelkooda nool ama dad wax isku darsanayo waxa horta lama huraana inuu meesha imaado waxa la rules ku macnaheedu yahay sharciyo on rules kaas qof walba qofkii ka soo gudbo on la ciqaabo qofkii oo rules kaas raacana meeshiisi oo sidii ay ahaato lagu awaal mariyo anaga ahaan waxaan dad meel isku imaado ilaa 4 qof tiraan aan gaarayo marka aniga xataa lagu diray 3 barood so marka waxaan waa dad shuraaka oo wax isku darsan so marka waxaan u yaal rules kaas qofka haduu ka baxo waxa jirto waxa uu qofkaas sharciga ka baxay qaabtaas uu mara asagana uu qaadanaya qaybtiisa marka waxa hadii even ay imaato xurguf ama in qof kamid ay wax isgaaraan waxa jir rules kaas haduu ka baxo waxa qofkii waa la qaabo ayagan raali ku wadayeen ruuxa qofka dadkii dhalay ma qabsadaan ama qof xaar soo hay hala dambada qofku igu dilow hadda guriga rules ayaa ka jira rules ha maanta adiga cunto karinaysa okay ya adiga cunto karinaya maanta adiga caawa adu waay saas miya wallahi fambro caadi ayaa bilaawatay 4 xaas mise 3 xaas waa khair in la guursado waa khair laakiin taas ma noqoto qof inuu ku soo caanbaxo de mise waa soo caanbaxay 4 xaas mise 3 xaas guursade waa soo caanbaxay de waa la guursan jiray weligeena media kuma arkin taakee iyo yariiskan yar mana yareen waa qof weyn ayaa u maleeyay 20 jir ma wajiga ma 20 jir wariya de maxaa beentan uu sheegaysaa waa iga kaftan intaas
anyway muuqaalka haddaa u baahato inaad soo daawato asuufuul ah dee maxaa kasoo daawanaya jaamac channel ha laakiin halkaas ayaa ka daawan kartaa asuufuul leh dee anaga halkaas ayaan kusoo koobnay laakiin aniga waxaan oran lahaa 4 xaas iyo 3 xaas waa la guursan jiray caanimana laguma raadiyo ha dee taasaa kusoo badatay amaan dambe dee ilaa iyo muuqaalka xiga aniga hadda maxaan iga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo peace